haddaan rabno inaan horumar samayno waa inaan horumarka dowladnimadan mar walba kor u qaadnaa nidaamka hadda dowladdu ay ka shaqaynayso oo runtii aniga cabdirasaaq baan shalay barkaftannay wuxuu yidhi waa naga dhuumato siyaasaddaa gasho waxaan idhi haddaan tan laga shaqayn lahayn maanta halka ma timaadeen maxaa yeelay markaan ganacsiga ka imaanayay siyaasadda waxaan u arkaa inay daruuri tahay maxaa yeelay dadkii caqabadaha la kulmi jiraan ka mid ah runtii inaan maanta maqlo swift iyo iban iyo inay productyada iyo leeyahay bangigaas waxaa ganacsatadu ay dubay iyo cumaan iyo meelaha u fadhiyi jireen intaas la ahaan jirta horta meesha lacagtii soomaaliya laga shaqeeya lagu cuni jiray aniga cabdirasaaq si fiican baa u garanayna laakiin in maanta uu qofkii inuu dee dana kale u tago waa wax kale ama laakiin wax ku kalifaya inuu joogo waxaan garanayaa iyadoo intaan airboortka boosto iska nimaano aan mid isaga nasiibsan walaalow lacagtaan qaad diyaaradda markuu saa usoo baxaayo qofka xataa smartphone qofka mas-uulkiisa usii dirtid mahin oo u tilmaamaysa waxa la mid saas oo saa dheer waxaas wato oo markuu soo baxo ku dhigaayo wuxuu lacagti lagu soo dhiibay dhiib cilladaha jiri jiray oo isaga nasiibsay ahaan jirtay marka maanta waad aragtaanoo waxaa isaga sidataa kaar ama si sahlan baad adeegaagii mobile banking uga isticmaalaysaa marka waxaan dadka halka fadhiya maanta iyo dadka soomaaliyeed ee maqlaya siyaasadda mar walba khalad baa laga fahmaa siyaasadda haddaan nidaamka la dhisin waxa laga filanaayo oo ah deganaanshaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka lagama helayo haddaan nidaamka la dhisin wax xun baa la malaynaya oo ka sii darnay maxaa yeelay dalkan oo swifti kood leh oo bangiyadu ersiyada furaan oo wax walba jiraan buu hal mar dumay nidaamkii markuu dumay wixii oo dhanaa la waayay hal habeen baa nin walba wixii uu watay waxay noqdeen wax kama jiraan marka waxaan u baahannahay horumarka dowladnimo inaan xoojinno nidaamka dimuqraadiga ah oo legitimacygeena kor u qaadaya oo qofku uu ku fadhinayo cod hadba tirada dadkaas iyo tirada baarlamaankaas siday isu leeyihiin loo qiyaasi doono laakiin markay u liidato marka federaalka la yidhaahdo wax ka badan 50 kun ama 100 kun oo qof uu legitimacygaas uu siinayo iyo stateka iyo tiradiisu intay la ekaan doonto waxa weeye waxyaabaha waxa aan raadinayna aan ku gaari karno horumarka aan rabno inaan gaarno dhallinyaradan faraha badan oo hadaayata cabdirasaaq uu yidhi waa asad haddaysan nidaam aysan helin dalku maalgashi imaan maayo weli hadda waa bangiyo soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo weli la daalaa dhacaayo qofka ay siinayaan inay dhahaan damiin keenso waxaan yeel microfinansiga iyo waxa waa wax kooban laakiin maaha wax dhaqaalaha kiciya kaas waxaa la rabaa mashaariic waaweyn oo maalgelin weyn hesha mararka qaarkood xataa bangigu hantidiisa hadday kooban tahay oo bangiyo kaleeto oo collateralka la samayn karo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan nidaamka dawliga horumar dadku meelo dhowow wax ka fiirfiiriyaan dadka hadda waayadan dowladda dhan inay wax ka helaan rabaan laakiin sida wax looga helo ma yaqaanaan marka sirta anaa ii sheegay anaa ganacsada ahaan jiray kulla lacag baa iska warabtaan Soomaali haddaad tihiin nidaam dawladeed dhista markaasaa lacagtu imaanaysaa nidaamka dawladeed xoojiya laakiin haddii dawladdii dabada ku dhegan tihiin haddee waxa weeye bahashu waa guraysa waxaa la isugu imaanayaa ceeb iyo wixii aan la baxna hadda visa card iyo master card aan marinaaye awal fadlan aan naqaano soo ma fadlanta iska daaya hadda marka bahashaana qaadanaysaa fadlan uma baahanaysid wixii tartiib baa isaga bixiraysa fadlanta waxa qofku ku kalifayo wuu jiranayaa wax amaahiya ma haysto kaar uu xoqdo ma haysto hal mar baa lacagti laga rabaa marka wuxuu ku khasban yahay inuu dadka maaragtay qaaraan ka urursado ama dawladda u tago dhaho fadlan wax la siiyo marka waxaan u baahannahay insurance in la xoojiyo dawladda saad ogtihiin waxaa baarlamaanka ag yaala nidaamka howlgabka ee shaqaalaha loogu talagalay bangiyadaan kala shaqayn doonaa sida shaqaalaha dawladda insuransigooda loo secure garayn lahaa waxaan kala shaqayn doonaa sida shaqaalaha dawladda loo facilitate garayn lahaa deen u qaadan lahaayeen
waxaan ka shaqayn doonaa oo wasaaradaha kala shaqayn doonaa marar badan ku fakirnay dhalinyarada sidii loogu shabeyn lahaa shaqooyin maalgelina oo qayb dowladdu wakiil ka tahay oo bangiyaduna ay maalgeliyaan shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay system iyo nidaam inuu ku yimaado mooyaane qof lacag la isaga rarayo way adag tahay in la sameeyo marka waxaan rabnaa shirarka noocaana inay bataan ganacsatadu inay productyada soo bandhigaan inay dadka la hadlaan in sida dalka loo horumarinayo dhaqaalihiisa ay shaqo ka qabtaan dabcan waxaa barbar socon doona shuruucda dalka oo heer state iyo heer federaal leh nidaamka maaliga shuruucdiisa haddaan la adkayn waa meelaha ugu badan ee khatartu ka imaan karto waxaad ogtihiin lacagtii dalka ee noodka ahayd almost waa dhammaatay lacagtii waxay ku jirtaa wax la yidhahdo electronic maaragtay mobiley ku jirtaa regulationkeenu weli waa kooban yahay waxaasoo dhan waa challenge jira ama waa caqabado jiro oo la rabo in laga wada gudbo oo dowladda iyo hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya iska kaashadaan puntland waxay diyaar u tahay wasaaradaheeda khuseeya arrimaha maalgashiga iyo ganacsiga iyo bangiga dowladdaba shuruuc fara badan oo arrimahaasaa gacanta lagu hayaa waxaan rajaynayaa bangigan servicekiisa iyo bangiyada kaleetaba inay noqdaan kuwo dadka iyo dalka u adeega muhiimaddu waa in dadka loo adeego adeegaas ayay khidmad sideedaba ganacsiga dad ka shaqeeya dadku waxay moodaan in rabix ay ulajeedadu tahay laakiin waa ka walwal badan yihiin kuwa kaloo bannaanka taagan maxaa yeele dad bay u adeegayaan faa'iidada u badan bulshadaa leh ma aha ninka ganacsiga iyo maalgeliya ma helo faa'iidada u badan waxa weeye dadka loo service garaynayo oo loo adeegayo ayaa leh waa ka walwal badan yahay qofka adeega bixinaya qofka loo adeegayo marka waxaan rajaynayaa caqliyadeenna ganacsi inay kobacdo bulsho reer miyiyaan ka nimid intii u badnayd ee dowladnimada aan haysanayna nidaam socialism ah baa dadkii waaweynaa helay dadkii yaryaraana nidaam fawdaa bay ku barbaareen marka challenge-gu waa badan yahay waxaa looga bixi karaa marka isku duubni iyo nidaamka dawliga iyo qawaaniinta la hormariyo marka runtii waxaan dhiiri gelinayaa ganacsiyada abuuraya ilbaxnimada iyo horumarka iyo istiqraarka dhaqaalaha waa muhim wax badan waa la yeelan karaa wax badan waa la gelin karaa weliba waxaan u baahannahay puntland injection meelo kale ka yimaado oo dhiirada IBS markay imaanaysay waxaa jira bangiyo kale oo xawaalado ahaan jira oo muddo dheer jiray laakiin caqliga ay la yimaadeen baa moodaa inuu ka furfurnaayo way ka dheereeyeen meelo badan xogta hadda uu halka ka sheegay in visa card iyo master card ay iyagu wakiil u noqdeen hadda iyagoo ay direct yihiin waxaan is leeyahay waa xirfad